Trump oo sheegay in markaa isku day dil uu ka badbaaday haddaba maxaa dhacay marka Trump wuxuu ku sugnaa hotel la yiraahdo Hilton oo ku yaala magaalada Washington wuxuu ka qayb galayay munaasabad sanad walba ay wariyaashu soo qaban qaabiyaan waliba kuwa ka shaqeeya aqalka cad isaga madaxweyne ku xigeenka xaaskiisa rag badan oo mas'uuliyiin ah dawladdiisa ku jira meesha la roobna markaliya ayaa waxa la maqlay rasaas iyo qaylo madaxweynihii waa la booday madaxweyne ku xigeenkii waa la booday wixii madaxa meesha joogay waa la kala cararay dadka madaxiina foorariya xabadka dhulka dhigta waxa ka dhacay meesha xalay saq dhexe markay wax dhacayaan xalay saq dhexe ayaa waxaasu dhaceen waxyaabaha la yaab kale saakin marka aan warbaahinta ku arkay waxa kamid ah odaygu waxa leeyahay waa farsamo yaqaan weyn bilihii la soo dhaafay taageerayaashiisii xitaa isaga soo doortay gudaha Mareykanka ayaa hoos u dhaca ku yimid dadkii waa naceen halkan ku bood Netanyahu iska dabagal halkan aad oraygan marka wuxuu arkaa leeyay isagoo sagxadda taagan mar walba marka ayuu saasoo kala u dareemo alaabu farsameystaan marka dadkii shakiyaba ka qaba sheekada waxa leen odaga alaabihiisii waay dagaalkan Iran iyo waxaan iyo dadka dhibaatada u geystay iyo inuu dadkan ka sii jeediyo rabaa dadka lagu leeyahay asaga waxaan habaysaday oday caadi ma hadaba marka warbixin cajiiba marka waxa ka qortay Al Jazeera warbaahinta galbeedku iyagu waxa sheegay ninkii uu badbaaday laakiin meesha waxa xaqiiqada ah waxa ka jira iyo waxa sawiran ayaa maartay meesha laga ogaanay haddaba marka aad tusoo Al Jazeera waxay ciwaankaba uga dhigtay maxaynu ka ognahay weerarkii cashada ee wariyaasha aqalka cad iyagoo jooga weerarkii dhacay magaalada Washington macnaha weerarkii wariyaasha aqalka cad iyagoo ku sugan meel uu weerarku ka dhacay oo Trumpna joogay